waxay ahayd madal bilan oo boqoran dadweynaha ku dhaqan deegaanada bilicda san ee Hankidiile iyo sidoo kale Gumarta oo hoostaga deegaanka Badar Wanaag ayaa casuumad afur iyo sidoo kale casho sharaf iskugu jirta ku maamuusay labada murashax ee Siciid Maxamed Ismaaciil Siciid Sokeeye oo u sharaxan golaha wakiilada Somaliland iyo sidoo kale Yaasiin Cumar Cabdi Yaasiin Cumar Yare oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. waxay ahayd hadhimo sharafeedtii ugu heerka sarreysay waxayna dadka deegaankaasi aan xagga hore ku soo xusay murashaxiintii iyo sidoo kale wafdigooda ku soo dhaweeyeen martisoor iyo ballanqaad ah inay codkooda siinayaan doorashada 31 May Somaliland ka dhacaysa. waxaaynu sugan muwaadin cod buu naga doonayaa musharaxa ay labada inay wada socdo waxay naga doonayaan waa cod واسيننا عدك حقا لوحي هنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو كهذا ديجان كان هانكديله عدكيسي أفكيسي ودينمديسي وابتدان بلارن علماء يعقال يوسي هنديدهم كلا كلا يحل بانبله يعني وحنا كسر دوينا سلامة الإسلام كان كسر دواد هانكديله قاسوين اسكور راعي هنديدهم كلا كلا يو مد يعني جوده هذا يو مد عاقلة يو مد متعلق وحبرتيبا أنا قلنا وان شعب هذا فين هانكديله نهاي وانا دكتور دوين labada musharax ee sharafta leh ee qaasin isla soo gartay ee soo hadii malaga Siciid Yaasiin waan taageerinaa ilaahina waxaan u baryaynaa inay ku guuleystaan xilka inta waxay raaca hadii aanu nahay bulshada Hankidiile odayaal waxgarad aqool aruur codka aan siinayno labada musharax ee Siciid Ismaaciil iyo Yaasiin Cumar codkaanu siinayna waanu taageerina. dhankooda waxaa madasha martisoorka ka hadlay madax dhaqameedkii la socday wafdiga murashaxiinta. mudanayaal iyo marwooyin dadkiina shirka isugu yimid sida wanaagsan u soo shiray salaanta islaamka aan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaynu nahay qaasim waa shirnay qaasim wuxuu isku raacay labada xildhibaan ee Yaasiin Cumar Cabdi iyo Siciid Maxamed Ismaaciil oo Siciid Sokeeye loo yaqaano doorashooyinka inaynu geynaaba qaasin isku raacay reer waliba bani aadamka wax mal la yiraahdo jiro kitaabku ilaa waa jamaca ilbuuxiska la yiraahdo ilbuuxis qabiil waliba uu leeyahay ama cid waliba qaasin ilbuuxiskiisii baa Hankidiile caawa maraya iyo gargumareed meesha la yiraahdo ayuu maraya wuxuu qaasin u socdaa oo ilbuuxiskaasi soo saaray in labada musharax aynu dooranay ee aynu soo saarnay inaynu isku raacno inaynu maxay ahaydey dooranno shareecaduna in wax la doorto way ogashahay maxayse ku ogashahay qof diin leh oo akhlaaq leh inaad ku doorato oo tacliin leh maadi iyo tacliinta maxay ahaydey diinta bal yaqaana waxaynu isleenahay labada nin ee aynu dooranay ee Siciid Maxamed Ismaaciil iyo Yaasiin Cumar Cabdi waa kuwii halka aynu geeyna buuxin karaayay shareeca islaam markay tahay markay maadi kala tahay markay dhowrsamaan iyo cafaafi tahay waxaynu isleenahay waa nimanka buuxin karabaynu haddaynu qaasi weynanahay ayaynu isleenahay marka walaalayaal waladiina reer gargumareed iyo reer Hankidiile waxaanu idin keenay labada nin ee qaasin isku raacay waxaanu idinka filaynaa oo aan walaalayaal idin leenahay labada nin baynu codkeena siinaynaa halka qaasin marayna idinna nala martaan labada nin codka siisaan sida aynu maxay ahaydey ku tashanno ayaanu idinka baahanahay annana waa siinaynaa haddaanu nahay qaasin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maalin dhaweyd oo waqti yar ka soo wareegay waxay ahayd abaar aanay indhuhu qaban kareen oo ku ilmeynayaan marka dulka saaw eegto iyo biyalaan iyo haraad ilaahay baa saa wax u bedela oo awooda leh ilaahay seen horta marka hore u shukreynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka labaad aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee hadiye bakuurooye ballankaynu lahayn aa u soo ajiibteen marka tiin reer Hankidiile iyo gargumareed ma gumartaa meesha anigu Hankidiile baan u naqaanaa meeshane aad baan idinkaga mahad celinaynaa
warka waa wada hayseen oo de waxa weeye wax la yaab iskuul meel lama wada saxdo warna isku seeganaa qaasin inuu 2 nin intuu isu tagay oo 40 nin loo saaray oo 250 kalena dusha ka fadhiisteen la qaadaa dhigay oo hadii buuroon yahay gabal ka dhaco waa ka bariyo gabal ka dhaco waa ka bariyo labada inan hadii buuroon yahay arrinka la isugu keenay oo la isku raacay waa laga wada dheregsan yahay ninka aan xitaa goobjoog ka ahayn waxa la isheeyay dhegta daaweyn dhegtu ka haya ragga meesha fadhana waa rag wada muddo kara runtii warkiina waanu haynaa dad wacan oo hadii buuroon yahay sharaf ka muuqatana waa tiin warkiina marka horna saasaan ku haynay intan in ka badan iyo in kale ka badan oo ganacsatadii loo odayaashii le gaadiidkan soo qaadi waayay intan baana laydinku qorsheeyay 20-yada nin hadii buuroon waftiga 20 kaasa in ay hadii buuroon yahay diimaadaan in kalena kale wadi soo mari doonta qaar kale oo qaasinka kamid oo iyagu iskood isu magacaabay iyagoo reerka kamid ah oo hadii buuroon yahay laga yaabo ninkaasi taladiisu inay kalidii ku koobnayd markuu halka kalidii la careena in kalena uu daba yaacdana way jiraan oo wadi soo mari doonaan oo arki doontaan haddaan horena waa rag laga yaabo inay horeba idin soo mareen waxaanu galabta idin sheegnaa oo anagu maanta hadii buuroon idinku soo simanay in aynu arrinka reerka intaanu ka warhaynay iyo intaanu gaadhnaybana wada qaadatay idina si wada jira iyadoonu kalsoonida iyo warka ku hayno in ay idin hadii buuroon yahay arrinkan halkiisa ku qaadateen oo deegaankan uu aad u qurux badan yahay oo arrinkiisa arrin sharaf leh laga soo sheegayo oo halka qaasin wax dhigay niman ajiibay laga soo sheegayo haddana in hadii buuroon yahay odayaashu ay hadii buuroon yahay idin kala fadhiistaan oo arrinkaas si cad ballan cad aynu ugu kala tagno in aynu labada hareeraha hayno intaasaan ku soo oran kullu Suldaan Maxamuud Cabdilaahi Qabiile iyo labada murashax ee Siciid Sokeeye iyo Yaasiin Cumar Yare ayaa geestooda harimadan martisoorka ka dareen celiyay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تدويان شرفت بدن إسكيك كلا يبي ديان كهان كذيلة كمر يكين تجدن وعن مركز عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كبعدي وأنا أركز أنا أركز دينتي عقاشي أضياش ولا ما مريا بيش قاسن warkiina socdana waa la idin sheegayo labada musharax Siciid Maxamed Ismaaciil Siciid Sokeeye iyo Yaasiin Cumar Cabdi Yaasiin Cumar Yare in qaasin isku raacay oo ducadii aynu dhiganay 4 nin laga saaro la dhaariyay isku raaceen oo ay soo saareen baan idin soo gaarsiinay waxaananu inay idinka mahadnaqaynaa marka hore barwaaqada dhacday iyo nimcada iyo Ilaahay waa mahad koowaad leh oo inoo nimceeyay inoo barwaaqeeyay mar labaadna idinkana joojiyay anagoo maanta dadkii dambe idin nimi casar iyo duhur dhexdoodii nayiri tagi baysana waa furaysaan afurka qiimo badan leh halka loogu diyaariyay cashadii loo diyaariyay oo idin mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay taladii reerku waxay ku dhan tahay labada musharax laba naga dambeeyo qaar baa naga dambeeyo idin iman doona kuwaas waa qaar salaadiinta caayaya uqaasha caayaya urka signa caayaya musharaxiinta caayaya cid la socotana way arki doontaanoo hebeladii reeraa laga ilaalin jiray la socdo ku reeraa laga xidhi jiray loo jeedo walaadu ka fadhiiso ayaa la socda waxaan idin leenahay reerkii waana soo maray reerkii taladiisa aan qaadanay tala kale nagu baxay ku dhaha waana tiraahdeen boo waa runo waana tiraahdeen ku dhahaan idin leenahay waxaan idin leenahay waxa filayaa inteedan wax ka taqaanaba malaynamada siga macalinka idin keenay macamada idin furayde kuwa caayana reerka wanaagu wadin waa garanaysan marka waxaan leeyahay waxa idin talaa maalinta bishan imika maanta waa 8 May waa 8 maanta koobii sodonkeeda maalinta codka lagu reeyay baa inoo balana in codka ku ridno labada mashruuc ku ridno midna calaamadiisu waa faynuus midna waa faynuus Siciid Sokeeye calaamad buu leeyahay waa faynuus ninka odayga garan waxa faynuus ka calaamadii ninna calaamadiisu waa 317 ka calaamadii Yaasiin calaamad Siciid calaamad saasay inoo baleeyay soo maaha
ساسن سوقنا سوماها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan u mahadnaqayaa deegaankan aan imkan miyahan kadiile sida sharafta iyo karaamada iyo gumar sida sharafta leh ee ay noo soo dhaweeyeen iyo waliba Suuriyada iyo Afurka wada socda ee ay noo sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anagu waxaan leenahay codkeenu waa meel iyo maalinta doorashadu dhacayso haddii ilaahay raalli ka noqdo soo markaa iskuma raacsanin inaan isku meel wada marno inaan midownana soo iskuma raacsanin wixii beerbeeraya iyaga u taala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay bishu tahay 26 bishii Ramadaan oo aanu joogno waxaan ku raahdaayay Hankidiile iyo gumarta waxaanu halkan u joognaa maanta inaanu soo booqano ehelkayo oo aanu niraahno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu la afuro maanta oo la aragno bal maxaan ku raahdaayay jawiga afurka ee bal hadda Hankidiile siduu yahay oo maanta barwaaqo ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku shubay roob quruxdeedana arkaysaan walxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaanay ku daa'intaa nimcada Ilaahay marka Ilaahay loogu mahadnaqo subxaanahu wa ta'aala waxaanay ku baabaadaa marka nimcada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu mahadnaqo waayo dhamaantiinba waxaan ilaahay wax tiraadaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin arikan aanu socono waxaanu rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu khayrkiisa ina siiyo waxaanu Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala in aanu noqono muftaax khayrka ee wax wanaagsan lagu furo ee lagu xidho maxaan ku waxa xun waxaan u mahadnaqayaa tolkay iyo ehelkay Hankidiile iyo maxaan ku raay gumarta halkan ugu sharfay waxaan leeyahay sharfo fartiinu waa marxaati haddii aasiisaan mid khayr qaba sax bay noqonaysaa haddii aasiisaan mid aan khayr qabina qalad bay noqonaysaa walaanu afurayna bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma laka sumtu wa ala rizqika afturtu bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh